ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in dalkiisa aanu ka carari doonin sida madaxweynihii hore ee dalkaasi Mengistu Haile Mariam uu sameeyay sanadkii 1991. Abiy Ahmed oo ka qayb galayay madal looga hadlayay wararka been abuurka ee laga baahiyay dalkiisa waxa uu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo la doonayo in lagu qalqalgeliyo amniga dalka taasina aysan dhacaynin waxaana uu intaa raaciyay in dowladdiisu ay ku timid shacabka ama codka shacabka isla markaana xilka looga qaadi karo codka shacabka oo kaliya wararka ay BBC arrinta ka qortay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaa noo haya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo ka qayb galay madal looga hadlayay wararka been abuurka ee laga baahiyay Itoobiya ayaa wuxuu sheegay warbaahinta caalamka qaarkood in ay muddooyinkii u dambeeyay ay ku howlanayeen warar been abuur ah oo dalka Itoobiya lagu khalkhalgelinayo wararkaasina waxaa ka mid ah ayuu yiri Abiy magaalada Addis Ababa 100 ilaa 200 oo kiiloomitir iyadoo wax dagaal uu ka jirin oo dagaaladu marayaan 300 oo kiiloomitir meel u jirta Addis Ababa ayaa la waday wararka beenta ah oo lagu khalkhalinayo dowladda dalka ka jirta wararkaasi beenta ahna waxayna xusuusanayaan ayuu yiri madaxweyne Mengistu Haile Mariam sida uu dalka uga baxay 1991 haddii la daraasadeyn lahaana wax badan taa nooga soo bixi lahaayeen shakina aan ka qabin Abiy Ahmed mar warintaasi ka hadlayeen wuxuu yiri ቢያንስ አዲስ ታሪክ ባንሰራ ከ83 ታሪክ ልንማር እንደምንችል አልተገነዘቡም cadow ayaga ma oga inaan wax ka barnay taariikhdii sanadkii 1991 talooyin badan ayaana soo gaara oo oranaya dagaalka u dhamaaday baxa carara iyo wixii la mid ah taa markii ay suuragali weydana waxay u bedeleen jabhadihii Kenya ay joogaan Djibouti ay joogaan Suudaan ay joogaan wallahi aad ay u badan yahay si dawladda khalqal loo galiyo si ay marka arrimahaas u suuragalaan waxay oranayaan hebel iyo hebel ayaa baxay maadaama aan dhisaba lagu kalsoonaan karin maadaama la hareereeyay Itoobiyaanka ayaa iska leh anagu laba dalma lihin hawada markay isbedeshana wax isbedelaya ma jiraan Itoobiyaanimo ayaan ku noolaynaa kuna dhimanaynaa ስንኖር ኢትዮጵያዊነን ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያነን Abiy Ahmed oo hadalkiisa sii watana wuxuu yiri ololaha beenta ah ee bidii u dambeeyay warbaahinta caalamka qaarkood ka socday waxa laga yaabaa in siyaasiyiin iyo dad shacab oo aad u badanba ay khalkhal galiyeen taasina ay tahay wax dhici karo balse wuxuu sheegay wadaniyadu in ay taa ka weyn tahay እና 83 የነበረው ዲዛይን የሰሩ ሰዎች ድጋሚ ዲዛይን ሰርተው በማሸበር የሚነቃነቅ መንግስት እንዳለ ማሰብ የለባቸውም dhibaatadii ka dhacday Itoobiya sanadkii 1991 oo kala dawladda uma khalkhalayso waa inay cadow ogaadaan in arrintaasi aysan jirin dawladda dalka Itoobiyana waa dawlad la soo doortay oo shacabka kaliya xilka uu ka qaadi karo inta ay dawladda gudanayso waajibaadkii ay shacabku u igmadeenna wixii caqabad oo ka rimaada ay wajahaysaa marka kooxaha olaha dawladda ka dhanka wado maadaama qorshihii sanadkii 1991 oo kale uusan hirgelaynin waa inay xeelad kale la yimaadaan ስትራቴጂ መቀየስ ይኖርባቸዋል በዛኛው ስትራቴጂ ድጋሚ ስለማንሸወድ ማለት ነው Abiy Ahmed waxa kale uu sheegay dadku in ay ku wareereen wararka beenta ay baraha bulshada iyo warbaahinta qaarkood la isla dhaxmarayay bilihii u dambeeyay ku saabsanaa dalka Itoobiya iyadoo dawladda dalkaasi ka jirtana la doonayay in lagu burburiyo ay rumaysteen shacabkuna waxa looga baahan yahay yiri inaysan qaadan dacaayadaha raqiiska ay baahiyaan waxa uu ku sheegay cadowga dalka Itoobiya ee gudaha iyo dibaddaba kana aan dib waxaa la sheegayaa ciidamada Mareykanka oo fadhigoodu yahay dalka Djibouti gaar ahaanna mas'uuliyiin sarsare ama sargaal sare oo ka tirsan ciidamadaasi inuu walaac xoogan ka muujiyay dagaalada ka socda dalka Itoobiya waxaana uu sheegay in dagaaladaasi laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan guud ahaan gobolka haddaba wararkaasi iyo dabcan xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya gaar ahaan dhinaca dagaalada u dhaxeeya dawladda iyo xogaga TPLF waxa iga waramay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow xasanow Mareykanka waa uu ka hadlay saad sheegtay wuxuuna sheegay inuu aad uga walacsan yahay xaaladda dalka Itoobiya ka taagan taasoo Mareykanka uu sheegay dagaalka oo sii socda in uu saameyn uu ku yeelan karo xasiloonida ammaanka iyo waliba deganaanshaha guud ahaan gobolka iyo geeska Afrika gaar ahaan Mareykankana oo arintani indhaha uu ka qabsanayn abaanduulaha ciidamada Mareykanka ee saldhigga dalka Djibouti waa General William Zana oo BBC da u waramay wuxuu sheegay in ay ciidamadoodu ay u joogaan waa ciidamada Africom ee saldhigga
jabuuti jooge inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka gobolka ka soo kordha sida dagaalada etoobiya oo kale marka etoobiya uu ka dhaco dagaal gudaha isagoo hadalkiisii wataa wuxuu yidhi inay taasi ka dhigan tahay ama ay sababi karto inay go'aansadaan inay ciidamada etoobiya ku sugan soomaaliya ay kala soo baxaan waxaana halkaasi ku sugan ayuu yidhi 5 dal oo ka tirsan midowda afrika oo arrintani saamaynaysa waxaana jirta suurtagalnimo ah in kooxaha xagjirka ama argagixisada waa sidoo hadalku dhigay ay halkaasi dhaqdhaqaaq ka sameeyaan mar wax laga weydiiyey tallaabada ay militariga maraykanka qaadayaan haddii ay TPLF soo galaan Addis Ababana waxa uu yidhi doorka ay u joogaan gobolka uu yahay in ay ka jawaabaan xasaraadaha iyo dhibaatooyinka noocaasi generaalka hogaamiye ciidanka maraykanka geeska afrika generaal William Zana ayaa xusay inay u diyaar garoobeen ka jawaabidda haddii Addis Ababa uu dagaal ka dhaco oo xaaladdu sii xumaato cadow marka laga soo tago hadalkan generaalkan dalka maraykanka u dhashay xaggee marayaan dagaaladii u dhexeeyay xoogaga TPLF iyo dowladda in xasanow dagaalka waqooyiga dalka Ethiopia ka bilowday gaar ahaan deegaanka Tigray markii dambena ku fiday deegaanada Amxaarada iyo Cafarta ee halkaas sara jirsaday waa uu socdaa xoogiisan wuxuu ka socdaa gudaha deegaanada hore u soo sheegay waa Amxaarada iyo Cafarta iyo meelo kamid ah oo aad u kooban oo koonfurta deegaanka Tigray dagaalkana dhinacyada waxay kala sheeganayaan in ay guulo ka gaadheen dhanka dowladdu iyadu waxay sheeganaysaa inay aaga hore ee dagaalka ee deegaanka Cafarta ay guulo ka gaareen tuulooyin iyo deegaano xadkaasi ku gadaaman oo gudaha deegaanka Tigray ay qabsadeen halka TPLFna ay iyaguna sheegayaan in deegaano hor leh oo wadada halbowlaha u ah dalkaasi Ethiopia ee dekada Djibouti ka timaado meelo kamid ay qabsadeen si ay u go'doomiyaan socodka gaadiidka dekada ka iman laha ama kuwa dekada u socdo inkastoo ay BBC ahaan sheegashooyinkaasi labada dhinac ay xaqiijin karin dhinaca kale waxaynu ognahay cadow in ay socdeen dadaalo lagu dhexdhexaadinayo oo lagu soo afjarayo dagaalkan muddada ka socda dalka Ethiopia dadaaladaasna xaggee marayaan in xasanow dadaaladu waa ay socdaan oo waxa ugu horeeya oo la sheegi karaa madaxweynihii hore dalka Nigeria Olusegun Obasanjo oo ahna ergeyga gaarka ee geeska Afrika ee midowga Afrika u qaabilsan isagoo markaa kulamo la yeeshay madaxda dowladda dhexe ee dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo waliba golihiisa wasiirada qaar kamid ah iyo waliba dhinaca TPLF isagoo u socdaan magaalada Maqale haatan uu wado madaxda deegaanada kale ee dagaalkaas uu saameeyay Cafarta iyo Amxaarada lamid inuu la yeesho wuxuuna Olusegun Obasanjo uu sheegay in booqashadiisii halka ku tagay iyo kulamadii uu la yeeshay hogaanka labada dhinac ay ahaayeen kuwo rajo wanaagsan leh waxa la isku haayeen ay tahay siyaasadda una rajaynayo in siyaasadda waawaan lagu soo afjaro balse afhayeenka dowladda Ethiopia Dina Mufti wuxuu sheegay haddii la rabo in dagaalka xal laga gaaro waa inay TPLF aqoonsadaan dowladda dhexe deegaanada ay qabsadeen ay ka baxaan weerarada ay wadaan ay joojiyaan halka afhayeenka TPLF Getachew Reda uu dhankiisa sheegay in ay waawaan nabadeed oo ay dowladdu la galaan ay ku bilaaban karto oo keliya haddii ay dowladda go'doominta ay Tigray ku hayso iyo in la sii daayo dhammaan adeegyada bulshada sida bangiyada isgaarsiinta gaadiidka iyo wixii lamid ah uu mahadsan yahay mar kale cabdiraxmaan xaaji cadow oo iiga waramayay warkaasi ka soo baxay dowladda maraykanka ee walaaca ay kaga muujinayso xaaladda dalka Ethiopia dagaalada ka socda iyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca dagaalada ee dowladda iyo xogaga ka soo horjeeda